golaha wakiilada Soomaaliland ayaa subaxii hore ee saaka waxay ansixiyeen xeerka macdanta dalka ee xeer number 8/2019 fadhigani lagu ansixinayay xeerkaasi macdanta ayaa waxa ka soo xaadiray 52 xildhibaan. Fadhigani ayaa waxa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Isla markii gudoomiyuhu furay ayaa waxa cod la geliyay xeerka macdanta dalka, waxaana xeerkaasi u codeeyay isla markaasina ogolaaday 22 xildhibaan, waxaana ka soo horjeestay 28 xildhibaan. laba xildhibaanna ka aamuseen. sidaasi ayaanu xeerkii macdanta dalka oo ay ku diideen isla markaasina uu ku jabay. Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa natiijadaasi ku dhawaaqay, waxaana hadaladiisii kamid ahaa